innagu haddaynu Soomaalina waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladii weynayd waa lagu heshiin waayay ina kala gooya gobolka ina kala gooya waa ina yareeyadi reerka heshiin waayay laba suldaan u samee kuwa hoosaasi waa saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeenu hadduu qabiilka yahay hadduu dawladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda xoolo la isku daray say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaadee haystay baa isqabtayo way ku kala baxeen midna laba gaadh u qaatay midna laba gur u qaatay waa ina yareeya xalkeenu halka dunidu ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa wataasi caalam alislaam oo dhan maxaa ka jira magaal baa intuu yimi jabiyey maya caalam alislaam inaga isjabinay gaalkuna dabku inala huriyey mid qori inaga iibiya iyo mid ina amaahiya iyo mid yidhaahda adaa xaq leh horow soco waa ku garab taaganaya iyo mid yidhaahda qaanuunkan kugu taageeraya United Nationka sida yiri wuxuu doonayaa kugu taageero isna dabaduu ka riixay markaad jabtayna wuu ku daawado wuu kugu qoslay waliba markaad xad jabkaagu gaadhayna wuxuu yiri waxba ku yaran dhiman oo wisaay ah baad u baahantay hay'adaha midoobay iyo inay kula taliyaan waxaan idin sheegayaa Soomaaliya waxbarashadeedu dugsiyada hoose 900 oo saacadood buu ha curriculumkeedu 900 oo saacadood ayuu ninka elementary school ka dhigtaa curriculumkiisu ahaa markay isdishay ee jabtay ayaa UNESCO timo waxay tiri annaga idin qoraynaa idinku de waa waalateen leene annaga idin ma yaqabno annaga idin sameeynayna manhajti laakiin aqligiinu rehabilitation buu baahayo ma qaadi kartaane 540 saacadood baanu idin ka dhigaynaa 540 saacadood syllabus ku salaysan ayaanu idin siinaynaa si aad wax u barataan idan marka jabto waa lagu talinayaa si kastaba waa lagu talinayaa ilaahay aayadda markuu inoo tilmaamay war waa daciifaysaan oo awoodiinuna waa tagaysaa oo cadowgii ma idinka faa'iideysanaya hays qabanina ayaa haddana aayadda waxa lagu gabagabeeyay u fiirso wasbiruu inna allaha maca as-saabiriin baa layidhi dadku markay wada joogaan bini aadamku markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa ilaa bini aadamku qof waliba akhtaadiisii buu wataay markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa dadka aan xalka aqoonini mashaakilku markuu dhaco sida loo xalilo dadka aan aqoonini waxay xal ka dhigaan nidaamka la yiraahdo ina yareeya si xalku inooga yaraado kunnin baynu ahayn Soomaha waa isqabanay mal xal isbari weyne 400 iyo 600 inoo kala jabiya marka nin waliba gruubkiisu ku farxaya waa inta isku raayiga haya mushkiladii baa soo yaraanaysa ilaa gruubkani markii hadhow isqabtaan maxaa xal ah waa ina yareeyadide inoo kala jeex weeyaan gooso intaadana intaydan goosanaya 200 baan naqaata 300 ama 400 qaado ina yareeyay xal ka dhigaan dadkaan aqoonta lahayn bini aadamka si aqalku ku dambeeyay fikiraya waxay dhahdaan ay mushkila timaada solution bay leedahay xal raadino mufaawadaadka aan badino wada hadalka aan badino xal aan raadino there should be a solution wa inuu jiraa wado mushkilada lagu xalili karaa saadaradeed innagu haddaynu Soomaalina waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladii weynayd waa lagu heshiin waayay ina kala gooya gobolka ina kala gooya waa ina yareeyadi reerka heshiin waayay laba suldaan u samee kuwa hoosaasi waa saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeenu hadduu qabiilka yahay hadduu dawladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda xoolo la isku daray say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaadee haystay baa isqabtayo way ku kala baxeen midna laba gaadh u qaatay midna laba gur u qaatay waa ina yareeya xalkeenu halka dunidu ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa ma jirtaa solution kaga bixi karna qaab aynu horo wixeenan xooggeeno inaan kala dirin inta mushkiladda ma ka saari karnaa meesha tan aqligu saasoo ha qumaninu keeno laakiin inaga aqligeenu wuxuu keenay debaadiyaynu iskaga nooleen baadiyaha marka la isqabto dee gabadhun baa la yidhaahdaa naa awrka ii qabo intaad heeryada saarto waxaa ku gurato ayaa dabeetana bannaanka ilaahay kale
ay baad isaga guuraysaa ilaa waa dhul wada bannaan buu ahayo meeshaa doontaa iska tegaysaa caqligii guuritaanka ahaa baa inagu jira oo ah labadiis qabtaaba inay awrta inoo kala furin ay yidhaahdaan dabeetana uu ka tago caqliga bini aadamkee suubane ma aha dadka kama dhib badnin dadka badh baa moodaya soomaalidu inay mushkilad doonto waxaan u arkaa soomaalidu dadka ugu mushkilad yar leynayeen waa dad isku afa isku diina isku dhaqana waxay ku kala gedisan yihiin oo badanaanay jirin yes waa isyara duldulmiyeen ama xoolay kala qaadeen ama dhib baa dhex martay dhibi waa jirtaa laakiin ma aha dhibta dunida ugu buuran mushkilaadka dunida ugu buuranna ma aha waa mushkilaad xal loo raadin karayo sida ogeed ilaahay aayadda wuxuu ku gabagabeeyey wasbiruu in allaha maca saabiriin war sabra baa la yidhi sabra waa qaabka mushkiladda loo xalilo ha kala yaacine sabra oo kiina xun u sabra oo dulqaata oo kala dambeeya oo wasbiruu baa ilaahay yidhi in allaha maca saabiriin